baraha bulshada ugu faafay war ka soo yaray Najma Nashaad taasi oo dhowaanahanba guurkeeda aada loo hadalhayay iyada iyo sidoo kale Bashiir Hanuuniye. Ugu dambeyn Najma Nashaad ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in Bashiir Hanuuniye iyadoo aysan isqabin islamarkaana aynan ahayn nin iyo xaaskiisa oo kale. Waxa ay dafirtay guurkii dhexmaray iyada iyo sidoo kale Bashiir Hanuuniye. walow Instagram-ka gaar ahaan akoonadeeda kala duwan aad ay ugu soo bandhigaysay sawirada Bashiir Hanuuniye oo ay iyadu dadweynaha la wadaagaysay xidhiidhka kala dhexeeya ama ereyo markaasi u dhow oo ah macaankeyga nolosha iyo ereyo la mid ah oo ay soo raacinaysay sawiradii ay soo dhigtay. hase yeeshee waxaa fajacii la yaab ku noqotay qaar ka mid a dadka aadka ugu xidhan Najma Nashaad warkan weyn ee iyadu ay shaacisay ee ah islamarkaana ay ku dafirtay guurkii dhexmaray iyada iyo sidoo kale Bashiir Hanuuniye. hase ahaatee waxaa weli aada u soconaya weli waxaa si weyn loo hadalhayaa arrintan kasoo yeeraysa Najma Nashaad. dadka qaarna waxa ay durbaba aamineen in Najma Nashaad iyo saygeedii Bashiir Hanuuniye in gebi ahaanba xiriirkooda uu baaba-ay islamarkaana ay kala tageen. waxaynu horey u ogeen in Najma Nashaad ay iyagu wada joogeen Bashiir raallihada ninkii la oran jiray Cawaalo Dayr oo isna fanaan reer Hargeysa ah kaasi oo canug ay isu dhaleen islamarkaana maalmo baraha bulshada ay qabsatay furiinkooda. waxaana lagu eedeynayay in ay iska furtay ninkaasi ay wada joogeen jaceylkana u qabay iyadoona markaasi u hayaantay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliyeed halkaasi oo ay kula aqalgashay Bashiir Hanuuniye. Najma Nashaad ayaa warkan si weyn u burisay kuna tilmaamtay beenta baraha bulshada lagu faafiyey waxaana ay sheegtay in ay tahay waxba kama jiraan wararka dadku ay arkeen ee ah in Bashiir Hanuuniye iyada in ay isguursadeen. waxyaabaha tuunka abuuraya waxaa qayb ka ah haddaba siyaabaha Najma Nashaad xilligan ay uga falcelisay guurkeedii baraha bulshada si weyn u qabsaday. xitaa dad wariyaal iyo fanaaniin waaweyn oo la garanaya isugu jiro ay hambalyo iyo tahniyad hawada u mariyeen. waxaase dadka qaar ay rumaysan yihiin in Najma Nashaad iyo sidoo kale Bashiir Hanuuniye iminka ay isfureen islamarkaana ay kala dhaqaaqeen. haddaba Najma Nashaad ayaa waxaa si aada loogu dhaliilaya in ninkeedii hore ay gebi ahaanba isaga tagtay walow ninkeedii hore uusan ka hadlin furiinka iyada iyo sidoo kale isaga dhex maray balse ninkeedii Cawaalo Dayr ayaa la sheegay sidoo kale haweeney kale in uu ku mehersaday magaalada Hargeysa ee Somaliland. haddaba Najma Nashaad maadaama ninka iminka ay isqabeen Bashiir Hanuuniye uu ahaa xaaska ama basaygii hore ee Farxiyo Fiska waxaa dadka qaar ay aada markaasi u hadalhayeen siyaabaha ay isku soo beegay guurka Farxiyo Fiska iyo sidoo kale Najma Nashaad guurkeedii oo wax un ay kala horeeyeen ama maalmo un ay u dhexaysay guurkooda. Farxiyo Fiska oo dadka qaar ay aada markaasi u hadalhayeen guurkeeda islamarkaana ay sheegeen in siyaabaha markaasi ay usoo dedejisay guurkaasi inay tahay hinaase ay ka hinaastay Najma Nashaad oo ka dulqaaday ninkii ay horey u wada joogeen kaasi oo ay horeyba u kala tageen. si kastaba ahaatee waxaa weli aada u soconaya hadalhaynta iyo falcelinta ka dhalanaysa arrinta Najma Nashaad ay ka hadashay ee ku saabsan in markaasi Bashiir Hanuuniye iyada uusanba wax xiriira dhex marin oo dadka baraha bulshada aadka wax ugu qoro kuna faafiyo intooda badanna been hawaasyaal ay ku tilmaamtay ay intooda badan ahaayeen dad markaasi labadaasi qof isu tuhmaye arrimahaasina ay ahayeen waxyaabihii ka dhashay. haddaba Najma Nashaad oo fanaanad reer Hargeysa ah ayaa dhowaanahan waxay ku sugnayd magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliyeed halkaasi oo showyo kala duwan iyaduna ay ku qabanaysay. ilaa iminka dib uguma soo laaban magaalada Hargeysa ee Somaliland oo halka uu fankeeda markaasi ka hana qaaday sidoo kalena horumarka fanka ay ka sameysay qayb weyn ka qaadatay. haddaba waxyaabaha ugu waaweyn ee dadku ay markaasi isla marayaan waxaa qayb ka ah arrinta iminka ay ka dhawaajisay Najma Nashaad ee ah in qaar ka mid a dadka social media wax ku qoro ay markaasi xumaan iyo sidoo kale dhibaato ay ka dhexdhaliyeen iyada iyo sidoo kale Bashiir Hanuuniye sida ay dad iyadu ay ka dhawaajisay. waxa ay tiri dadka markaasi bulshada qaybta ka ah
ayaa problem weyn dhexdeena dhigay bay tiri mana jiro wax naga dhexeeya. waxaase dadka ay u qaadan laayihiin arrintan in najma nashaad ay ula jeedo hadalkeeda in isfahan dare ay soo kala dhex gashay labadooda oo ay isfureen sidaasna ay ku kala tageen, iyo in uusanba guursan markaasi bashiir hanuuniye oo isagu fanaaniintii hore ka mid ah islamarkaana reer muqdisho ah oo dadku ay hadalhayeen. sawiro ayaa jiray, caddeemo badan ayaa jira oo soo baxaye dad markaasi fanaaniin ah oo wararkooda la rumaysan karo oo aada ugu dhowaa fanaanadaasi ayaa sidoo kale hambalyo u diray. waxyaabahaasoo idil waxay ku tilmaamtay arrin aan waxba ka jirin sali raatoona lahayn oo been iyo propaganda isbiirsatay ah sida iyadu ay hadalka u dhigtay. arrintan ayaa u muuqataa mid markaasi si weyn dadku ay intooda badan u hadalhayaan islamarkaana siyaabo kala duwan ay aragtidooda uga dhibanayaan. najma nashaad oo fanaaniinta loogu jecel yahay ka mid ah magaalada hargeysa ee somalilan iyo guud ahaanba geyiga soomaalida ayaa imika waxay ku sugan tahay magaalada muqdisho, waxaana dadka qaar ay intooda badan aaminsan yihiin in halkaasi tani intii ay aqalgaleen iyadoo bashiir hanuuniye in halkaasi ay degtay oo ay u wareegtay. hase yeeshee haddana waxyaabaha dadka qaar ay rumaysan laayihiin ayaa waxaa ka mid ah in najma nashaad ay xaqiijisay dadweynahana ay u sheegtay in iyada bashiir hanuuniye in uusan wax xidhiidh ah amaba guur dhex marin sida iyadu ay hadalka u dhigtay. fanaanadan oo markaasi inta badan dadku ay soo qaateen sawiro aada u tira badan oo baraha bulshada qabsanaya ayaa dadka qaarkood waxa ay ku bogaadinayeen tallaabada ay qaaday, waxaana dhaliil ay u jeedinayaan xitaa iyada qudheeda ninka ay kala tageen farxiya markaasi fiska oo iyada markaasi ay isguursadeen ama xiriir ay la sameyso oo xitaa ay dhaliil u jeedinayeen, qaarkoodna ay tilmaamayeen in iyaduna ay kala tegi doonaan oo ay isfuri doonaan sida iyadu ay hadalka u dhigtay. si kastaba ahaatee baraha bulshada dadka fanaaniinta isguursanaya iyo dadka markaasi horey u kala tagay oo social mediaha qeyb weyn ku lahaa islamarkaana bulshada dhexdeeda aada moodo dadka markaasi caanka ka ah oo dhif iyo naadir ay tahay fanaaniin iyaga ilaa imika wada joogo oo isku waaray in la arko oo weliba la yaqaano oo caan ah oo ay aada u adag tahay. inta badanna fanaaniinta hablaha iyo ragga oo guurkoodu aanu isu badnayn oo qof walba jiho kale oo calafkiisa meel kale ka raadsado ayaa haddana markaa isguursadaan waxaa inta badan la sheegaa in guurkooda uusan ahayn mid waara oo waqti badan qaata isla markaana isfahan dhexdooda ay ka dhalato. waxyaabaha ugu badan ee loo aaneynayana waa fanka ay ku jiraan iyo dhibaatada u dhexalsiiya fanka, burburka qoyskana qeyb weyn uu ka qaatay sida dadka qaar ay rumaysan yihiin. si kastaba ahaatee waynu xaqiijin doonaa warbixintan iyo warbixinada iyada dambe ee aan soo gudbin doono muuqaalada dambe. si aad ula socoto fadlan gambaleelka furo, subscribe noo saar janalkan, laygare muuqaalkan. waan idiin mahad celinaynaa dhammaantiin.